Waad salaamantiin dhammaantiin ku soo dhawaada kanaalka Baro Luqad Cusub oo aan ku soo gudbino luqadda Ingiriiska. Haddii aad ku cusub tahay kanaalka Baro Luqad Cusub, fadlan subscribe saar kanaalka gambaleelkana furo si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada dambe aan soo gudbino. Sidoo kale waxaad nagu saacidi kartaa inaad muuqaalka like saarto si uu gaadho dad badan. Ku soo dhawaada casharkeena maanta. waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca. What is your major? Waa maxay takhasuskaagu? English waa Ingiriisi buu yidhi. What are you going to do with? Maxaad doonaysaa inaad ku qabato an English major, takhasuska Ingiriisida? I am going to be, waxaan doonayaa inaan noqdo a teacher, macallin. High school, dugsi sare, or middle school, mise dugsi dhexe. High school, dugsi sare aan doonayaa inaan macallin ka noqdo. I teach high school, waxaan dhigaa dugsi sare English, Ingiriisdan ka dhigaa. I didn't know that, taas maan ogeyn. I started teaching, waxaan bilaabay wax dhigista ama wax barista 5 years ago, 5 sano ka hor. How do you like it? Sideed u jeceshahay? Do you see, ma aragtaa, all this grey hair, dhammaan timahan cawlan? It was totally black, gebi ahaantood madow bay ahaayeen 5 years ago, 5 sano ka hor. Yacni intii uusan wax dhigista bilaabin weeye, ayuu leeyahay timahaygu madow bay ahaayeen, kadib imakay cawlnaadeen 5 sano markaan wax barayay dugsi sare dhigayay. Maybe laga yaabaa buu yiri I will teach middle school, inaan dugsi dhexe dhigi doono. Kii dugsigii sare markuu arkay ninkaa timuhu sidoo cawlnaadeen uu ka soo dhiiceeyay oo dugsiga dhexe soo qabtay. This is a huge library, tani waa maktabad weyn buu yiri. Maktabad bay soo agmareen amaba laga yaabaa markii hore ku dhex jireen ku wada sheekaysanayeen. Markaasuu yiri this is a huge library, tani waa maktabad weyn. Yes, it has lots of rooms, waxay leedahay qolal fara badan, and lots of space, iyo meelo badan oo bannaan. Markaasuu kii kale yiri and lots of books, iyo buugaag fara badan. Haddana kii kale ku soo noqdo markaasuu yiri and lots of TVs, iyo tuugaag fara badan. What do you mean? Maxaad ka wadaa tuugaag fara badan buu yiri. I mean, waxaan uga jeedaa keep your belongings, ku ilaali alaabtaada close to you, meel ku dhow. Markaasuu yiri now you are thinking, hadda waad fikiraysaa. Parking at school, parkinka iskuulku is impossible, waa waxaan macquul ahayn. I will say, waan dhihi lahaa. I drove around, waxaan ku wareegay anoo gaari wata for half an hour, saacad barhkeed. Did you find a spot? Meel ma heshay? No, I found a spot. Hadda waan helay meel. What do you need? Maxaad u baahan tahay for school, xagga dugsiga? I need, waxaan u baahanahay pencils, qalin qori ama qalin rasaas, kolba kaad u taqaano. Anything else? Wax kale. I need, waxaan u baahanahay a notebook, ama xasuus qor. Do you need, miyaad u baahan tahay a pen, qalin biro? No, maya, I already have, horaan u haystay a pen, qalin biro. Do you need, ma u baahan tahay a calculator, xisaabiye? No, maya, the teacher, macallinku doesn't permit, ma ogola calculators, kalkulatorada ama xisaabiyeyaasha. How about ka waran a dictionary, qaamuus? No, maya, we have a big dictionary, waxaan ku haysanaa qaamuus weyn in the classroom, fasalka dhexdiisa. Well, hagaag, I guess, waxaan qiyaasayaa that's it, inay intaas tahay. Yes, that's all, waa intaas. I need, waxaan u baahanahay for now, hadda. How good is your math? Waa sidee xisaabtaadu, sidee u fiican tahay? I can add, waan ku dari karaa 2 and 2, laba waan ku dari karaa buu yiri. So, saa daraadeed, you are not very good, aad uma fiicnid at math, xisaabta. I'm terrible, aad baan uga cabsadaa at math, xisaabta. Well, hagaag, I need some help, xoogaa caawimaad baan baahanahay. With what? oo maxaya? I am taking, waxaan qaadanayaa
A math course koorso xisaaba in school ayaan iskuulka ka qaadanaya. Well, hagaag. You should ask waa inaad weydiisaa your teacher macallinkaaga or your classmates ama ardayda isku fasalka tihiin for help caawimaad. I can't do that. Saa ma samayn karo. Why not? Oo maxaa diidaya? They might think waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan I'm stupid inaan doqonahay. They are not going to think that. Sidaas uma malayn doonaan. They will be glad to help you. Way ku farxi doonaan inay ku caawiyaan. I can't wait. Ma sugi karo. Until ilaa maa iyo I graduate aan ka qalin jabinayo. Me too. Aniguba sidoo kale. No more homework. Shaqo guri dambe ma jirto. I hate homework. Waa nacbahay shaqo gurida. Are you going to college? Ma college baad aadaysaa? I can't afford it. Ma awoodo. yacni iskama bixin karo qiimihiisa. So what are you going to do? Markaa maxaad doonaysaa inaad qabato? I'm joining the army. Ciidankan ku biiraya. You are kidding. Waad kaftamaysaa. You might get killed. Waxaa laga yaabaa in lagu dilo. I don't think so. Sidaas u malayn maayo. After I finish markaan dhammeeyo I will have enough money. Waxaan heli doonaa lacag igu filan to go college. Aan college ku aado. That's not a bad idea. Taas maaha fikrad xun. Intaas ku eegi casharkeena maanta waxaa sidaa inoogu soo dhamaaday conversationkii dheeraa ee dhowrka qaybood ahaa English conversation about school life. Qaybtana waa qaybtiisii saddexaad waana qaybtii u dambeysay. saas ku soo dhamaaday. Insha Allah subscribe saar kanaalka gambaleelka na furo si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gelino. Aad iyo aad baad mahadsantihiin.